بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته waxaan halkan doonaynaa inaan ka bilaabno taxanaha taariikhdii Tataarka waxaynu soo gudbin doonaa xalqadiisii koobaad ama hordhicii haddii aad jeceshahay taariikhda Tataarka ama aanad hore wax uga akhriyin waad ka faa'iideysan kartaa iyadoo ka kooban nuxurkeedii iyo meelihii ay xambaarsanayd ayaynu ka warrami doonaa haddii aad nagu cusub tahay fadlan nagu soo biir oo ka mid noqo asxaabta bahweynta hubaal haddii aad hore noola joogtay aad baad mahadsan tahay mar labaad ka soo dhowaada kuna soo dhowaada barnaamijkeena taxanaha taariikhdii Tataarka waxaynu ka bilaabi doonaa taariikhda Tataarka bilow ilaa Caynu Jaaluud xadaaraduhu way baabaan qaramaduna way burburaan ilbaxnimooyinku way dhalangadismaan laakiin qalinka muuqaalada iyo qoraaladuba way jiraan inta ay nololeedu jirto sidaas darteed waxaynu ka warrami doonaa taariikhda tagtadeedii timaadadeedii iyo tan ay maanta la noolnahayba hordhac ayaynu ka bilaabi doonaa ilaahay subxaanahu wa tacaala naxariis darteed uu naxariisanayo addoomihiisa ayuu dhulka korkiisa u dhigay taariikho soo jireen oo aan gadgadoomin isbedelna aan lahayn taariikhdaasi waxay joogteynaysaa nolosha dadka taasayna ku tiirsan tahay jiritaanka dhaqdhaqaaqa iyo deegaanka bini'aadamkuba haddii xilli kasta uu lahaan lahaa taariikh u gaara ama meel kasta ay lahaan lahayd sunno ka duwan tan kale ee nolosha uumiyaha waa ay baabi'i lahayd wayna anban lahayd dhammaan khibradihii lasoo dhaafay laakiin galada ilaahay darteed khibradihii tagay dhammaantood ma lumin wixii kugu dhacay shalay way soo noqonayaan maantana way kugu dhacayaan wixii maanta kugu dhacayna beritoole ayay kugu soo noqonayaan sidaas ayayna u soconaysaa ilaa maalinta dunidu dhammaato sidaasi darteed ayaa muhiimadda laga leeyahay barashadu taariikhdu tahay midaas oo qura dhacdooyinka noloshu way soo noqnoqdaan iyagoo aad moodo inay isku mid yihiin dunidana aanay wax ku cusubi jirin haddaynu taariikhda dirsno taariikhda waxaynu ogaan doonaa dhacdadan oo kale inay wakhti dhacday iyada oo wadata duruufta ay maanta wadato oo kale sidatana isla huga ay labisan tahay waxaynu awoodnaa in aynu kala soo baxno wixii hore laga dhaxlay haddii guul laga dhaxlay wadadeedii ayaynu maraynaa si aynu u guulaysano sidii ay ugu guulaysteen kuwii ku guulaystay haddii dhacdadu ahayd mid lagu jabay oo foolxun khaladada ay sameeyeen kuwii la noolaa wakhtigaas darteed waaynu ka fogaanaynaa si aynaan uga dhaxlin faa'iidadaas xun oo kale barashada taariikhda sidan loo bartaa waxay ka dhigaysaa taariikhda mid nool oo soo jeeda barashada taariikhda nooca loo bartaa sidoo kale waa mid leh ujeeddo cad ujeeddadaasina waa in la baarayo ama laga baarayo cibro waana midda ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aankiisa ku sheegay ee uu ku yidhi لقد كان في قصصهم العبرة لأولي الألباب waxaa ugu sugan ku cibro qaadasho taariikhda kuwa caqliga u saaxiibka sababtaas darteed ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala saddex meelood oo meel ka dhigay qur-aanka warar iyo qisas si ay u akhriyaan muslimiinta taariikhaha dunida soo maray iyo qoomamkii hore iyo inay ogaadaan dhab ahaan inay yihiin sunankani kuwa sugan isla markaana la awoodo saadaalinta shay inta aanu dhicin ka hor iyo ka faa'iidaysigeeda waxaa kaliya oo lagaga faa'iidaysan karaa iyada oo qiso kasta si qoto dheer looga fikiro iyo in la baaro dhan kasta si isla eg sidaas darteed ayuu ilaahay qur-aankiisa ku leeyahay faqsus ilqasasa lacallahum yatafakkaruun uga waran wararkii dadkii hore si ay u fakeraan waxaa iminka ina hortaalaa taariikhaha muslimiinta kuwa ugu muhiimsan ama taariikhda dunida oo dhan guud ahaanteed waa dhacdo ku saabsan soo bixitaanka awood cusub oo cabsi leh wejiga dunida korkiisa oo dhan qarnigii 7aad ee taariikhda hijriga waxay geysatay soo bixitaankeedu mid adduunyada oo dhan taariikhdeeda bedeshay guud ahaan gaar ahaan caalamka islaamka quwadaasina waa dowladii Tataarka ka waranka Tataarku waa qiso aad u yaab badan cajiibna ah dhan kasta marka laga eego haddii aanay lahayn ila waradiyo saxan dhammaantood iyo weliba sawirkeeda oo ahaa mid ballaaran oo cid weliba ka warqabtay waxaynu oran lahayn waa khiyaali ama waaba sheeko xariireed qisadani waa mid yaab leh isbedbedelkeedu waa awood isu rogtay dacfi ama awood yari isu rogaysa awood iyadoo muddo badan aan qaadan
maba aha sanado yar maaha inta ilaahay subxaanahu wa tacaala dowlad kale ku cisaynayo mid kalena ku dilaynayo sanado yar kadib ayuu mid ku dilaynayaa haddana mid kale ku cisaynaya قل اللهم ملك الملك تؤتي الملك من تشاء وتسع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير waxaad dhahdaa nabi maxamedow allaha mulkiga iska lahow cidda aad doonto ayaad siisaa mulkiga cidda aad doontana waad ka siibtaa mulkiga waxaad sharafta siisaa cidda aad adigu doonto cidda aad doontana waad dulaysaa gacantaada ayaa khayr oo dhammi u ahaaday wax kastana ilaah wada awooda mar kale waa qiso cajiib ah dhab ahaan dhacdooyinka ku jira darteed ee weliba aadka u daran kuna xeldheer lamarada dhacdo kasta ku xeldheer tirada dhimashada tirada ciidamada tirada magaalooyinka burburay bedadka dhulalka la kala qabsaday tirada khiyaamooyinka asluubaheeda sida kale ee qisadu cajiibka u tahay waa isu ekaanta waaqica maanta taagan waxa uu doonay ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu inoo caddeeyo sugnaanta sunankiisa iyo sanuqnuqadka taariikhda markaasuu ka dhigay dhacdooyinka maanta ee ay ummadaynu marayso mid la mid ah tii ay maraysay ummadii muslimka ahayd ee noolayd qarnigii 7aad ee hijriga haddaynu baarno taariikhda waxaynu kala soo baxaynaa isu ekaansho badan oo kale hase yeeshee dhacdadan doorashadeedu inay dhacdo maanta ama maalintaas hore waa mid iska cad sababtoo ah waxa uu wareegayay xaalku ama uu ka dhacayay meesha ay maanta ka dhacayaan marka loo eego caalamka islaamka sidaas darteed waxa fudud in uu qofka akhrinaya ama dhageysanaya isku xiro taariikhda iyo waaqica maanta taagan si fudud mar labaad qofka dhageysanaya ama akhrinaya in ay u fududaato in uu xaqiiqsado sunnooyinka ilaahay iyo jiritaanka abuurkiisa iyo dhulkiisa ujeedada aynu ka leenahay dhacdadanka warankeedu maaha inaynu galno tafaasiilna ka bixino dhacdo kasta ama aan isdul taagno goob kasta waayo taas sharaxeeda ayaa badanaya laakiin waxaynu dhacdooyinka u dulmaraynaa si dhaqso ah innaga oo ka baarayna meelaha cibro qaadashadu ku jirto iyo isu ekaanta casrigan ay la noolahay waxaynu si degdeg ah u xalili doonaa sababaha guuldarooyinka iyo sidoo kale sababaha guusha ciddii u baahata inay siyaasato waxay raadsanaysaa tixriicyada waaweyn ee muslimiintu ku keediyeen ka waranka taariikhdan iyo xogteeda ilaahay ayaan weydiisanaynaa inuu nagu anfaxo safxad kasta akhrinteeda kelmad kasta ku dhawaaqideeda iyo xaraf kasta carabka soo marintiisa oo ku saabsan ka waranka qisadan cajiibka ah soo bixitaankii tataarka ayaynu imika si toos u geli doonaa awoodda tataarku waxay soo baxday qarnigii 7aad horaantiisii haddii aynu doonayno inaynu fahanno duruufaha ay ku soo barbaartay awoodani waa inaynu isdul taagnaa xaaladda ay dunidu ku sugnayd sabankaas haddaad wakhtigaas dunida sidaas u egto waxaad arkaysaa in laba awoodood oo isku dhadhowi ay ka jireen kana talinayeen dunida tan koowaadi waa ummadda islaamka dhuldeegaameedka muslimiintu wakhtigaas wuxuu ahaa mid ku dhow dunida ilaahay camiray marka laba loo qaybiyo badhkeed inta ay dunida degnaayeen waxay ka bilaabanaysay xuduudda muslimiintu galbeedka shiinaha waxay soo dhamashay Aasiya Afrika ilaa laga gaaro galbeedka Yurub oo ah Andalus waa bad aad u ballaaran laakiin xaaladda muslimiinta wakhtigaas waxay ahayd mid aad u daran ama mid aad u xun oo xanuun badan caalamka ay haysteen balaadnadiisa tiradooda oo mahiigaan ahayd dhinaca dadka dhinaca nolosha kale oo aad u sareysay sida lacagta ganacsiga hubka iyo cilmiga dhammaan iyagoo waxaas oo dhan haysta haddana waxaa ka jirtay tafaraaruq aad u daran caalamka islaamka loolan dhinaca siyaasadda ah oo ka dhaxeeyay ama ka dhaxaloosnaa dowladihii muslimka ahaa ee waaweynaa waxaa la yaab sii ah inta ay dunida muslimku xaaladaas xun gashay waxay ahayd sanado yar kadib markii qarnigii 6aad ee hijriga markaas oo ummadda muslimku ahayd mid awood leh guuleysata markasta calan kaliya oo isku xidhan leh laga haybadeysto laakiin waa sunno ilaahay hore u dhigay waana uu quraanka inoo sheegay wa tilkal ayyaamu nudaawiluhaa bayna annaas kuwaasi waa maalmo aanu dhex wareejinayno dadka waxaynu ka warami doonaa ama aynu yara eegi doonaa caalamka islaamku sida uu ahaa bilowgii qarnigii 7aad waxaynu kaga bilaabaynaa inaynu ka waranno dowladdii Cabbaasiyiinta waxay ahayd dowlad weyn oo qadiimi ah waxayna dhisantay kadib markay burburtay dowladdii Umayyiyiinta ee weyneyd sanadii 132 hijriyada bilowgii qarnigii 7aad ee hijriga aad iyo aad ayay dowladdani u daciiftay ilaa ay gaadhay heer aanay si dhaba u xukumin
ciraaq mooye waxaana caasimadu ahayd baqdaad ilaa sanadkii 132 hijriyada. waxaa ciraaq ku wareegsanaa tobanaan maamul goboleed oo yaryar oo si toos ah uga goostay khilaafada walow iyadu aanay u aqoonsanayn waxa ay isku magacaabayeen. waxaad awooddaa in aad tiraahdo dowladda cabbaasiyiintu dowlad maahee waa sawir dowladeed sababta oo ah wakhtiga may lahayn haykalkii dowladnimo oo dhab ah. waxay ahayd laakiin hadh ay muslimiintu jecel yihiin in ay iska jirto oo ay iyaguna hadhsadaan yaanayba lahaan waxyaabaha haykal dowladnimo looga baahan yahay oo la taaban karo. si la mid ah sida maanta dowladda ingiriisku tahay soo jireen taariikhi ah oo qura islamarkaana aanay u lahayn xukun door ah oo la sheegi karo oo muuqda dunida, khulafada khaliifkoodu waxa uu si dhab ah u xukumi jiray ciraaq oo dhan marka laga reebo qaybo yaryar. waxa uu ahaa mid xukunka cabbaasiyiintu ay u kala dambeeyeen khulafo ka soo jeeda reer cabbaas. waxay tuurta ku qaateen magacaad u weyn oo ah khaliif, laakiin wakhtigan ka midka ahaa qarnigii 7 ee hijriga kuma sifaysnayn magaca. run ahaantiina iyaga dan weyni kagama jirin in lagu sifeeyo asal ahaanba, kuma jirin mid hamigiisu yahay ama dhaafsiisan yahay xoolo urursi iyo in uu ku dangiigsado kursigaas qolada yar ku jira. kumay eegin marna aragti saxa waxa ay shaqadii loo diray ahayd shaqadii madaxweynayaasha. iyaguna may fahmin in madaxweyne mas-uuliyaadka saaran ay ka mid tahay inuu sugo amniga waddankiisa, inuu dhiso ciidamo xoogan oo dalku leeyahay, inuu kor u qaado maqaamka nololeed ee shacbigiisa, inuu ka xukumo kii daalimka ahaa oo ummadda ka dhex qabto, una soo celiyo qofka la dhacay xoolihii laga dhacay, inuu u gargaaro waxna la qabto kuwa la dulmiyey, kana ciqaabo kuwa daalimiinta ah ee wax dulminaya, toosiyo xaqa uu Ilaahay subxaanahu wa tacaala adoomadiisa ku leeyahay ama ku waajibiyey, wanaagana faro xumahana ka reebo, isla markaana daafaco wax kasta oo islaamka liddi ku ah, mideeyo safafka muslimiinta iyo qulubtoodaba. may fahmin howlahaas culculsi in laga rabo hogaamiye kasta oo muslim ah. dhammaantood waxa kaliya ay doonayeen waxay ahayd inay kursiga ku fadhiyaan wakhtiga ugu dheer ee u suurtagala in ay iyagu ku fadhin karaan, sida ilmahoodu uga dhexli lahaa xukunka, inay ku xejiyaan kuwa masabka haya ee qoysaskooda ka mid ah, inay dadka qoorta kaga taagnaadaan. sidaas darteed waxay ku dadaaleen sidii ay u urursan lahaayeen xoolo fara badan. waxay u guntadeen boob marle arag ah. waxay ku dadaali jireen sidii loo qaban lahaa xaflado soo jeeda ama saamaleyl, dhagaysiga heesadaha, muusikada, lahwi iyo wax aan dhaamin. nolosha hogaamiyuhu ama hogaamiyaashaasi waxay ahayd mid aan ka duwanayn dadka caamada ah oo kale, halkii laga rabay inuu noqdo hogaamiye ummadeed oo si dhaba u xukuma ummad muslima ah. dhab ahaan waa ay luntay haybadii hogaamiyenimo, sharaftiisiina dhulka ayay la galeen. waxa ay tani ahayd dowladdii cabbaasiyiinta bilowgii qarnigii 7 ee hijriga. halkaas ayaynu ku joojin doonaa qaybteenna koowaad. tan iyo intaaynu isugu iman doona xalqadan xalqada inoo xigta, waxaan leeyahay sidaas iyo nooli kulantee.